halkan rabaa inaan kula wadaagno ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan daneeyaasha arrimaha Soomaaliyaba shirkii saad ogtihiin Dhuusamareeb 2 oo looga ballamay Dhuusamareeb 3 iyo xaaladihiisa sida la socotaan Dhuusamareeb 2 waxaa lagu heshiiyey in bisha August 15keeda la isugu yimaado magaalada Dhuusamareeb 3 si looga heshiiyo hanaan doorasho oo dalku galo madaxdii Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay Dhuusamareeb 2 ballantu waxay ahayd 15 bisha August in la isugu yimaado magaalada Dhuusamareeb waxaa ka soo qayb galay 15 bisha August oo ballankii ilaa ay haddana soo gaaray madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Firish waxaan weli soo gaarin oo aan shirka ka soo qayb gelin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo runtii aan cududaar u sameynayno ama cududaar leh oo xanuunsan intaan ognahay Allah caafiyaan leenahay dhammaan madaxda oo mahadcelinaynaa madaxdii soo hormartay waqtigii ku timid soo ilaalisay waqtigana si gaar ah ugu mahadcelinaynaa sorry waxaa yimid madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo waqtigii ku yimid ballanta sidii ay ahayd waa mahadcelinaynaa waxaan rabnaa halkaan inaan ka cadayno inaan walaalaha maqan sugayno sidii aan diyaar ugu nahay ballantuba ay ahayd oo iyaguba ay dhinacooda ballanta ka qabteen oon leenahay walaalayaal shirka soo gaara noo imaada wixii ama hawlihii loo arko inay mudan yihiin ama wax ay ka jiraan gogoshii iyo goobtii loogu talagalay in looga wada hadlo looga heshiiyo way taallaa oo ballankeeda wada qabanay oo ballankeeda wada qabsanay sidaa darteed wararkii hawada la isu mariyo iyo fariimo la isu gudbiyo xaaladda maanta Soomaaliya ku jirto iyo waqtiga la joogo kuma aadana waqtigeedina ma ahan waxaan isleenahay xilli fariimaha hawada la isu mariyo ma joogto waa la kala duwanaan karaa waa jiri karaan waxyaabo aan lagu wada qanacsanayn balse goobteedii iyo gogosheedii iyo ballankeedii baan joognaa oo ay tahay in loo wada hadlo oo lagu heshiiyo sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa walaalaha sharafta leh saaxiibaday inay yimaadaan gogosha waqtiga ummadda Soomaaliyeed maanta ku jirto xaaladda dalku ku jiro hanka weyn oo Soomaaliya ka leedahay rajada weyn oo ku xiran oo ah doorashada dalku galayo in laga heshiiyo laga wada hadlo uma baahnaan is leeyahay inaan ka dib dhacno iyo waqtiga uu ku dhumo wax aan ku aadanayn maslaxada sidaa darteed halka aan isugu nimaadno sidii gogoshii iyo ballankuba ahaa waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed qaab doorasho way ka heshii jirtay waana ka heshii karnaa ballan iyo isfaham ku filanna waa soo gaarnay hada ka hor iyadoo aan cidina nagu dhex jirin ama aan cidina ay Soomaali isfahamsiinayn madaxda Soomaaliyeed waa iska fahmeen Dhuusamareeb 1 iyo Dhuusamareeb 2 waa lagu soo heshiiyey tirina waa lagu heshii karaa iyadaana dabaanad isu ah ummadda Soomaaliyeed waxaan ku kalsoonahay ka soo baxa
dhuusamareeb tiri inay fulayaan shacabka Soomaaliyeedna ay ku kalsoonaa karaan talooyinka iyo go'aamada ka soo baxa waxaan leenahay sidaas walaalahay intaas rabaan uga baxo runtii waxaan rabaa inaan cadeeyo inaan wada xiriirno rajo fiican aan ka qabno inaan isugu nimaadno si taladuba ay ahayd maantay waxaan noo furmay shirkii wajigiisii koobaad maanta la gudagalnay waxaan dhageysanay maanta warbixin ka dhageysanay guddigii farsamada soo diyaarinta qaabab doorasho ama hanaan doorasho la kala doorto ama lagu dul shaqeeyo maanta ay nala wadaageen guddigii farsamada welina shaqadii way socotaa guddigoona waa ku jiraan hawshoodii balse maanta intaasay nala wadaageen caawana shirkii wajigiisii koobaad ayaa noo furmay oo aan gudagalnay doodihii iyo wada hadalladii qaababkii doorasho ee guddigu ay soo gudbiyeen ee nala wadaageen runtii guddiga waa u mahad celinaynaa dadaal fiican bay sameeyeen aad bay u soo dadaaleen talooyin bay soo urursheen meel bay soo gaarsiiyeen wadahadalka caawe ah si guud mabdiyan waa isku afgarannay welina waa socotaa hawshaas annagoo mar walba u bannaynayna ama u diyaar ah inay walaalahay nagu soo biiraan na soo gaaraan oo iyaga ay toodii iyo taladoodiiba u bannaan tahay oo aan ugu talagalnay ama aan rajo fiican ka qabno inay na soo gaaraan shirkuna wuu soconayaa haddii ilaa yidhaahdo ugu dambayn waxaan rabaa in halkaan uga diro runtii mahadcelin shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba sida ay shirkan u garab taagan yihiin sida ay talooyinkooda iyo tilmaamahooda wanaagsan u bixinayaan sida ay shirkan inuu guulaysto loogu wada taagan yahay loogu wada diyaarsan yahay waxaan leenahay walaalayaal shirkan insha Allah guul ku dhamaanaya safgarada ku dhamaanaya dalkuna hanaan doorasho oo lagu wada qanacsan yahay ayuu gali doonaa insha Allah taala taasna kalsooni buuxda ku qabnaa waana ku kalsoonahay in sax u dhacayaan sidoo kale waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo saaxiibada beesha caalamka sida ay mar walba noo garab taagan yihiin ay u Soomaaliya u garab taagan yihiin oo dowladda Soomaaliya ay garab u siinayaan taana waxaan halka uga mahad celiyo saaxiibadeen oo runtii si joogto ah arrimahan waliba si gaar ah doorashooyinka noola socda ama garab nooga siinayay talooyin iyo mar walba arrimo ku aadan in guul laga gaaro noo siinayay waxaan ku gabagabeynayaa mar labaad leeyahay walaalayaal saaxiibadeen soo dhawaada idinkoo mahadsan shirkana ka soo qayb gala yaanan wax haba yaraatee keeni kara in ay dib u dhacdo ama waqtiga qaaliga ah Soomaaliya laga dhumiyo in laga fogaadana waa codsanaynaa waxaan rabnaa inaan meesha ka sii wadno guulna u rajaynayna ummadda Soomaaliyeed guud ahaan insha Allah waxaan leeyahay kale gobasha waxaa dhigay reer Galmudug walaal kasta oo wax qabi kara gobasha reer Galmudug ku taxgaliyo qadariyo annagoo ku qanacsan meeshii dheeri ku jiro inaan ka bari karno ka qanci karno walaalkii qaba ama mas'uulkii qaba saa darteed gobasha la qadariyo hana la yimaado aad iyo aad ma tantii